Fanaanka caanka ah ee Qamar Sugaani ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Hargeysa uu dhowaan ka dhoofi doono halkaasi oo uu tagi doono dalka Ingiriiska, gaar ahaan caasimadda dalka Ingiriiska ee London. Waxaa la filayaa in dhowaan uu ka tagi doono magaalada Nairobi ee xarunta dalka Nairobi, kaas oo maalmihii ugu dambeeyay uu ku sugnaa magaalada Hargeysa. Waxaana Qamar Sugaani ka mid ahaa fanaaniintii aadka uga soo shacbaxay fankooda magaalada Hargeysa. Dhowaan u baahayd markii uu guursaday Qamar Sugaani gabadha lagu magacaabo Nasiim Sooraan. Qamar Sugaani ayaa noloshiisa waxaa soo maray marxalado kala duwan oo ay ka mid tahay xaaskiisii hore ee Ugbaad Aragsan oo ay soo kala dhex galeen khilaaf dhanka guurka ah, taas oo in badan aad arkaysay in baraha bulshada muuqaalo kala duwan laga sameeyay. Waxaana aakhirkii ay isku beddeshay in Qamar Sugaani iyo Ugbaad Aragsan ay isnacaan oo ay isfuraan, taas oo ay ka dambeysay in uu guursado Nasiim Sooraan oo ka timid dalka dibaddiisa. Waxaana Nasiim Sooraan awalkeedii ku nooleed dalka Ingiriiska ee carriga dalka Ingiriiska, waxaanay dhowaan u timid sidii ay u guursan lahayd fanaanka caanka ee Qamar Sugaani. Qamar Sugaani ayaa waxaa soo wajahay intii uu Hargeysa ku noolaa fadeexado kala duwan oo ay ugu dambeysay fadeexadii ahayd inuu uurayay, taas oo cod lasoo duubay baraha bulshada lagu faafiyay, taasina ay aakhirkii dhalisay in fanaanka uu ka soo falceliyo. Hase ahaatee, fanaanka caanka ee Qamar Sugaani ayaa intii uu Hargeysa ku noolaa waxaa soo wajahay oo kale in jirdil lagu geysto gudaha Hargeysa, taas oo uu isagu laftiisu sheegay in ciidanka booliiska Somalilan ay jirdilkaasi u geysteen, walow anagu ilaa imika aanan caddayn karin. Waxaa kaloo la sheegay in fanaanka waxyaabihii lagu jirdilay ay ahayd in uu cabayay khamri, taas ay ciidanka booliiskuna ku qabteen. Hase ahaatee, uu isagu eedaasi iska fogeeyay. Si kastaba ha ahaatee, fanaan Qamar Sugaani hadda waxa uu muuqdaa inuu ka xamaam gurtay magaalada Hargeysa ee dalka Somalilan, kaas oo la filayo inuu u dhoofi doono dalka Ingiriiska dhowaanahan maalmaha soo socda. Waxaana sheegay in Qamar Sugaani ay hadda xaajadiisii Nasiim Sooraan ay u soo dacwadna uga furtay dalka Ingiriiska sidii ay u soo dhoofin lahayd, qabanqaabada dhoofkiisana uu hadda ku jiro. Waxaana la shaaciyay in dhowaan uu ka dhoofi doono dalka Kenya, gaar ahaan caasimaddeeda Nairobi, halkaasi oo safaaradda Ingiriiska ku taala uu halkaasi u tagi doono sidii uu howlihiisa dhoof uga dhammaysan lahaa. Fanaan Qamar Sugaani ayaa waxaa is weydiin leh haddii uu dalka Ingiriiska tago halkaasi fankiisa sidee buu noqon doonaa, maxaa isbedeli doona, noloshiisa sidee bay noqon doontaa, inagoo ogsoonayn in magaalada Hargeysa waxyaabo fara badan uu kala kulmay. Fanaan Qamar Sugaani ayaa waxaa lagu eedeeyaa inuu ka mid yahay fanaaniinta aaminsan Soomaali weyn, taas oo isku dayo fara badan uu sameeyay uu doonayay inuu Hargeysa kaga dhoofo oo uu tago Muqdisho laga hor istaagay. Si kastaba ha ahaatee, fanaan Qamar Sugaani xaaladiisa ayaa hadda u muuqata in gebi ahaanba uu noqonayo qurbo joog ka mid ah qurbo joogta Soomaalida ee ku nool dalka dibaddiisa.